waa semifinalkii Champions League ee Chelsea waxaana ciyaarta ka harsan kaliya 2 daqiiqo haddii Barcelona ay gool dhaliso waxay gaaraysaa finalka haddii kalena toos ayay uga haraysaa tartanka dhibtuse waxay tahay kooxdu ilaa hadda hal shoot kuma aadin goolka Chelsea ilaa uu ka yimid goolkii iftiinka badnaa ee Andres Iniesta sanado badan waxa loogu yeeri jiray mid xishood badan mid iska aamusan iyo mid hoos isu dhiga dadka adduunka oo dhanina markaasi waa ay la yaabanayeen sida uu ku dhaliyay goolka cajiibka laakiin hal qof oo kaliya ayaan la yaabin waana Pep Guardiola waayo waxa uu tan oo kala arkay 10 sano ka hor 22 Luulyo 1999 ciyaartoyda kooxda koobaad ee Barcelona ayaa soo fariistay kuraasta daawashada ee garoonka Camp Nou iyaga oo daawanaya ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka adduunka ee naadiyada carruurta daadoodu ku hooseyso 14 jirka waqtigaasina ciyaaryahanadu si degan ayay ku daawanayeen ciyaarta laakiin markii uu soo galay xidiga lambarka afraad Pep Guardiola horay ayuu u soo kacay oo uga soo kacay kursigiisii si feejigan daqiiqada kadibna wuxuu u sheegay Xavi Hernandez waan ogahay inaad maalin ibedeli doonto laakiin waa inaan kuu sheegaa wiilkaasi yari waa uu inaga fariisin doonaa kubadda cagta labadeennaba markii ciyaarta waqti dheer lagu daray iyadoo barbaraan ah Andres Iniesta ayaa garoonka iftiimiyay oo goolka guusha dhaliyay daqiiqada kadibna Guardiola laftiisa ayaa tarbuunka ka soo degay si uu u siiyo koobka isagoo oo rabay inuu u reebo hal fariina 10 sano kadib mar kale garoonkan ayaan ka daawan doonaa khaladka kaliya ee uu sameeyay waxay ahayd halkii uu ku daawan lahaa kursiga taageerayaasha waxa uu ka daawanayay kursiga tababaraha si kastaba ha ahaatee ma ahayn wax lala yaabo in adduunka ay ku adkaato inuu rumaysto in wiilkan yari uu noqon doono haliyay mustaqbalka kubadda cagta Andres Iniesta waxa uu ku dhashay tuulo aan xitaa lahayn garoon kubadeed sababta kaliya ee Andres Iniesta ugu guuleystay inuu kala akaademiyad kubadda cagta waa aabihiis oo isagu lahaa riyo ciyaaryahanimo oo fashilantay weligiisna kama uusan gudbin heerka saddexaad ee horyaalka Spain markaasna waxa uu go'aansaday inuu sameeyo wax kaste si wiilkiisu uusan ugu noolaanin rajabeelkii uu isagu ku noolaa wuxuuna bilaabay inuu eego buuggiisa taleefanada halkaasi oo ka helay lambarka tababarihii hore ee Pedro Camacho walaalkiisa Jose Antonio Camacho ayuu la xiriiray wuxuuna helay tijaabo uu ku tagi karo Albacete maalintii ugu dambeyn uu halkaasi tagayna waxa garoonka joogay 200 oo carruur ah oo dhammaantood u dagaalamaya dhowr boos oo yar laakiin 5 daqiiqo gudahood ayay tababarayaashii bilaabeen inay ka hadlaan farshaxanka Iniesta waxaana ay yiraahdeen ma arki karna carruurta kale haddii aysan xitaa awoodin inay kubadda ka qaadaan Iniesta taasina weligeed isma bedelin iyadoo qoyska Andres Iniesta ay isku bedbedelayeen hadba qofkii ka xayn lahaa 40 mayl si uu u geeyo tababarka 3 jeer asbuuciiba iyagoo oo rumaysan in ugu dambeyn hibadiisu ay noqon doonto mid cajiiba markii uu jiray da'da 12 sanana taasi waa ay dhacday kooxdiisa yar Albacete waxay u safreen Madrid si ay uga qayb galaan tartanka ugu weyn dalka Spain waxaana yaab noqotay in Iniesta isaga oo kaligiisa uu kooxda gaarsiiyay semifinalka isaga oo ka adkaaday daayarta Real Madrid intii lagu jiray safarkaasi waxa uu ku guuleystay ciyaaryahanka ugu fiican tartanka abaalmarintuna waxay ahayd tigid lagu tagayo jardiin madadaalo oo ku yaala Barcelona taasi oo ahayd isku soo beegan cajiiba maadaama isla tartankaasi lagu casuumay inuu booqdo La Masia akaademiyada Barcelona taas oo dhalisay jahwareer weyn oo qoyska iyo danahooda ma rumaysan kartaa Andres Iniesta saxaafadda waxa uu sheegay inuu yahay taageere Real Madrid ah oo daacada lafta iyo dhiigana u shuba markaas iyadoo qoyska Camacho ay ku lug lahaayeen qof walba waxa uu aaminsanaa inuu ku dambeyn doono Madrid laakiin kooxda cadcadku waxay ku adkaysteen inuu aad u yar yahay ayna sugayaan inta uu korayo halkaas ayay Barcelona ka faa'iideysatay waana ay qaateen iyaga oo ka dhigay wiilkii ugu daada yaraa ee La Masia ku biira marka la eego waqtigaasi waxay ahayd ceeb weyn in Real Madrid ay sidaasi samayso laakiin waxay ka sii xumaatay sanad kaliya kadib markii wiilka yar ee Andres Iniesta uu bilaabay inuu la tababarto kooxda koobaad ee Barcelona markaasna Real Madrid waxay muddo waday isku daya ay ku doonayso inay kula soo wareegaan isla sanadkaasina waa ay ku dhawaadeen inay ku guuleystaan kadib markii Andres Iniesta uu ku guuleystay tartanka Yuurada ee 16 jirada aabihiis waxa uu bilaabay wada hadal ku saabsan qandaraaskiisa Barcelona laakiin dhawaan ayay kooxdu 35 milyan oo euro ku soo iibsadeen Saviola kaasoo noqday ciyaaryahankii daayarka ee ugu qaalisanaa taariikhda sidaas darteedna waxay bilaabeen inay qiimo hoose ku bixiyaan ciyaartoyda kale arrintuna waa ay xumaatay ilaa aabihiis uu si cad u yiri annagu Madrid ayaan u soconaa haddii uusan madaxweynihii Barcelona ee waqtigaasi isagu arrinta hoos u eegin waxa laga yaabaa wax walba inay si kale u dhici lahaayeen ugu dambeyn sanad kadib
Andres Iniesta mar kale ayuu muujiyey kartidiisa isagoo ku guulaystay tartanka Yuurada ee 19 jirada markaasna Real Madrid way ku waalatay Iniesta aabaha Andres Iniesta waxa uu sheegay inuu marar badan iska indhatiray wicitaanadooda balse halkii la filayay inuu baxo sanadkii xigay waxa uu helay kulankiisii ugu horeeyay ee safashada kooxda Barcelona markii la gaaray sanadkii 2005 ciyaaryahan kale oo Barcelona ma jirin oo kulamo ka badan ciyaaray inta uu isagu ciyaaray laakiin hal dhibaato weyn ayaa jirtay 90% kulamadaasi waxa uu ka soo kacay kursiga kaydka oo bedel ayuu ku imaanayay waxay noqotay mid cad in Iniesta lagu arko inuu yahay ciyaaryahan lagu bedelo marba qofkii dhaawacma xil ciyaareedkii xigayna niyad jabkiisu waa uu sii batay markii Xavi Hernandez uu galay dhaawac ACL Iniesta ayaa si buuxda ula wareegay qadka dhexe Barcelona waxay u socotay si xamaasad leh tartanka Champions League Iniesta wuxuu ciyaaray daqiiqad kasta si cajiib ah isagoo mar walba sameynayay wax ka wanaagsan inta kale laakiin markii la soo saaray listiga ciyaartoydii finalka magaciisu waxa uu ku jiray kursiga kaydka xitaa saaxiibadiisa ayaa ka yaabay muddo 45 daqiiqo ayuu ka daawanayay kursiga kaydka Barcelona oo ku dhibtoonaysa Arsenal oo 10 ciyaartooy ah ilaa Samuel Eto'o uu ka soo baxay garoonka oo kursiga kaydka yimid isla markaana weydiiyay tababaraha sababta aan Iniesta loo soo galin tababara Rijkaarna waa uu garwaaqsaday qaladkiisa markaas ayuuna 3 bedel sameeyay ciyaartana si buuxda ay isu bedeshay Larsson ayaa bixiyay 2 caawin Baletti ayaa isaguna dhaliyay goolka guusha laakiin Thierry Henry ayaa waraysi la yeeshay ciyaarta kadib waxaana uu yiri waan ogahay sheekada Larsson iyo Baletti laakiin qofkii naga dilay maalintaasi wuxuu ahaa Andres Iniesta inkastoo wax qabadkiisu uu ahaa mid cajiib ah oo sababay in looga yeero koobka adduunka isagoo aan weligiis u ciyaarin xulka Spain haddana markii uu ku soo laabtay Barcelona doodii hore ayaa dib u bilaabatay mar walba kursiga kaydka in lagu hayo ayaa bilaabatay marna uu biyaha u geeyay ciyaartooyda ciyaaraysa ee waaweyn mararka qaarkoodna laga ciyaarsiiyo meelaan isaga ku habboonayn warbaahinta iyo falanqeeyaashuna waxay ka hadlayeen hadal ah labada qadka dhexe ee jilicsan weligood ma wada shaqayn karaan waa Iniesta iyo Xavi si kasta ahaatee markay Real Madrid ugu dambeyntii go'aansatay inay isku daydo inay la soo siixato waxay dhaqaajisay qandaraaskiisii waxayna miiska soo saareen 60 milyan oo euro iyo check maran oo ay yiraahdeen mushaarka aad rabtid ku qoro inkastoo xilligaasi uu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda ugu mushaarka hooseeya Barcelona haddana Andres Iniesta waa uu iska diiday dalabka Real Madrid maamulka Barcelona waa ay baraarugeen qandaraaska ayay u kordhiyeen iyagoo ka dhigay ciyaaryahan joogta kulamada waaweyn ku soo bilowma laakiin haddana tababare Rijkaard waxa uu sii waday inuu ka ciyaarsiiyo garab weerarka xitaa intii lagu jiray Yuuradii 2008 tababaraha xulka qaranka isaguna isla sidaasi ayuu sameeyay oo waxa uu ka ciyaarsiiyay meel ka duwan booskiisa caadiga laakiin ma rumaysan kartaa inuu kala bar tartanka ku ciyaarayay calool xanuun haddana waxa uu soo bandhigay kulankii semifinalka ciyaar cajiib ah isagoo oo noqday xidiga ciyaarta wuxuuna sidoo kale ka mid noqday kooxda tartanka ee sanadkaasi iyadoo xulka Spain ugu dambeyn ay ku guuleysteen Euro 2008 kadib 44 sano oo ay koob la'aan ahaayeen si kasta ahaatee wax kasta uu sameeyay sanadkaasi wixii ugu fiicnaa waxay ahayd in Pep Guardiola uu noqday tababaraha kooxda Barcelona markii la weydiiyay su'aashii caanka baxday ee ahayd Xavi mise Iniesta Pep Guardiola si cad ayuu u jawaabay labadoodaba marna ma rabo mid kaligiisa mar walba wada jir dadku waxay yiraahdaan lama wada ciyaarsiin karo anigu se waan aaminsanahay in la wada ciyaarsiin karo markaas ayay sheekadii ugu weyneyd bilaabatay kadib barbaro iyo guuldarro labadii kulan ee ugu horeeyay horyaalka Pep Guardiola waxaa soo baxday xal sheegaysa in shaqada laga ceyrin doono Andres Iniesta wiilkii aamuska badnaa ayaa xafiiskiisa ugu yimid Guardiola waxaana uu ku yiri hawlwalin sii wad waxaad samaynayso waxaan ku ballan qaadayaa inaan cid walba burburin doono laga bilaabo maalintaas Iniesta mar dambe guuldarro ma arkin marka uu garoonka joogo laakiin marka uu dhaawac ku maqan yahay 12 kulan oo horyaalka oo uu sheegay Barcelona waxay guuleysatay kaliya 6 ka mid ah marka uu garoonka ku jiro kooxdu waxay isu bedeshaa mid wax kala ah jareeradaha waaweynna waxa qasab ku noqotay inay u magacaabaan ciyaaryahanka ugu wanaagsan Spain waxayna siiyeen aanay sacaan ah oo ay ku muujinayeen sida Iniesta uu garoonka u maamulo taasoo aan ku dhisnayn xoog cabsigelin balse ku dhisan xarago iyo farshaxanimo marka laga soo tago goolkii caanka baxay ee Chelsea kaas oo kooxda badbaadiyay haddana goolkaasi noloshiisa ayuu bedelay sababtoo ah goolkaasi waxa uu kaga tagay dhibaato weyn kadib ciyaartaasi Iniesta waxa uu dareemay xanuun yar oo muruqa boodada midiga isla lugtii uu goolka ku dhaliyay 4 maalmood kadibna dhaqaatiirta kooxdu waxay sheegeen inuu leeyahay dhaawac muruqa ah xilli ciyaareedkaana uu khatar ku jiro haddii aadan nasan ciyaaryahanimadaada way u dhamaatay ayay ku yiraahdeen laakiin markii uu kooxda ka maqnaado sidii caadada ahayd Barcelona waxay lumisay 2 kulan
oo ka horreeyay finalka Champions League iyadoo saddexleydii taariikhiga ahaydna ay halis gashay. Iniesta waxa uu ku qasbanaaday inuu go'aan qaato, waxaana uu yiri waqtigaas waxaan ogaa inaan ciyaari doono khatar kasta ha jirtee, maskaxdayda wax kale kuma jirin. Waxaan rabay inaan guulaysto xitaa haddii labada lugoodba la iga jimin lahaa, finalkaasi waan ciyaari lahaa. Laakiin xaaladiisa caafimaad sida ay tahayba ha ahaatee, tababarihii Manchester United Sir Alex Ferguson ka hor ciyaarta waxa uu yiri ma ihi mid ka walwalsan Lionel Messi. Iniesta waa khatarta dhabta ah. dabcan 10 daqiiqo gudahoodna waxa uu caawiyay goolkii guusha ee Barcelona siiyay Champions League. waraysigii kulanka kadib ee saxaafaddana Wayne Rooney ayaa tilmaamay inuu Iniesta yahay ciyaaryahanka ugu fiican dunida, halka Eto'o uu horay u sheegay isla hadalkaasina uu saxaafadda ku yiri waan idin sheegay hadda miyaad rumaysateen. 9 bilood kadibna markii la arkay in heerka dhalmada ee Catalonia ay kor u kacday 50%, Guardiola ayaa la weydiiyey cidda sababtoo ah si qosol ayuuna u yiri Andres Iniesta. Laakiin taasi waa dhinaca quruxda badan ee sheekada dhinaca mugdiga aan fiirino. Markii dhaqaatiirta kooxdu ay hubiyeen xaaladiisa kadib ciyaartii finalka, waxay isla markiiba garteen inuu sameeyay qalad weyn, uuna khatar gali doono muddo 410 maalmood oo soo socota oo uu mari doono jahwareer iyo ciqaab adag. markii la gaaray Sebtembarna, Iniesta 6 bilood oo ka mid ah 10 bilood ee ugu dambeeyay waxa uu ku qaatay kasoo kabashada dhaawiciisa. waqtigaasna cidna wardhaba kama haynin xaaladiisa, marka laga reebay inay soo baxayeen warar yar oo sheegaya in la arkay isagoo sidii ilmo yar la daadihinayo xerada tababarka ee Barcelona. Laakiin 8 sano kadib, Iniesta laftiisa ayaa shaaca ka qaaday in intii lagu jiray bilowga soo kabashadiisa uu galay walbahaar iyo niyad-jab. waxaan ku dhacay god madow oo aan wax ka bixid lahayn. hooyadiisuna waxay tiri waa marka aad garanaysid in wax qaldan yihiin, marka wiilkaaga 26 jirka ah uu habeenkii ku yimaado isaga oo ku leh iqaba fadlan. nasiib darrada ugu weynse waxay ahayd in saaxiibkiisii xulka qaranka Danish Qarchi ahaana kabtankii kooxda ay Barcelona xifaltamaan Isbaanyool uu geeriyooday weliba si kadisa, waana ninka ay ku wada guulaysteen Yuuradii 19 sano jirada. taasina Iniesta waxay ku riday god kale oo madow. nasiib wanaagsi 1 sano kadib, inkastoo uu tababarada ka bixi jiray xilli hore, dhaawacyadu ay soo laalaabteen uuna qaatay 110 maalmood oo mugdi ah, ugu dambayn waxa uu gaaray koobkii adduunka ee 2010. waxa uu dhaawac kaga baxay ciyaartii furitaanka isaga oo seegay tii labaad, balse Iniesta waa uu soo laabtay si uu u dhaliyo goolka ku hogaamiyey xulka qaranka Spain wareegyada xiga ee tartanka. waxaana 3 gool oo hal yeber kadib Spain ay heleen inay gaaraan finalkoodii ugu horreeyay ee koobka adduunka. 3 saacadood ka hor ciyaartaasi, Iniesta waxa uu la joogay mid ka mid ah dhaqaatiirta xulka qaranka, waxaana uu weydiistay wax ma iigu qori kartaa shaarka halkan yaala, qof baan rabaa inaan u hibeeyo goolkayga. markii ay ciyaartu gaartay daqiiqadii 117aad, Andres Iniesta ayaa sidii caadadiisa ahayd dhaliyay goolkii ugu muhiimsanaa taariikhda Spain, isagoo oo dalkiisa gacanta ka saaray koob adduunkoodii ugu horreeyay taariikhda. markii uu dabaaldegayna waxa uu kor u qaaday fanaanadiisa si uu u muujiyo fariin ku qornayd oo ahayd Danish Qarchi had iyo jeer nala joog. markii xigtay ee uu booqday garoonka Isbaanyoolna, taageerayaashooda ayaa u istaagay si ay sacab ugu garaacaan ninkan oo lagu tilmaamay inuu ahaa cadowgoodii caanka ahaa, ha yeeshee markii dambe la yidhi waa boqorka kubadda cagta ee Spain. laakiin waxa ugu muhiimsan ee goolkaasi uu siiyey Iniesta waxay ahayd inuu xooggiisii dib u soo ceshaday, uuna ka soo baxay waqtigii madooba. 6 bilood kadibna waxa uu kaalinta labaad ka galay abaalmarinta Ballon d'Or-ka, isagoo 5% codadkii la dhiibtay ka hooseeyey Lionel Messi, halka Xavi uu buuxiyay kaalinta saddexaad. dhammaadkii xilli ciyaareedkana mar kale ayay la kulmeen Manchester United finalkii Champions League, waxayna soo bandhigeen ciyaar aad u la yaab badnayd, waana midda ku qasabtay Manchester United ciyaartaasi oo dhan inay hal mar toogtaan goolka Barcelona, waana goolkii Wayne Rooney. Xavi iyo Abidalna mar dambe waxa ay sheegeen in Wayne Rooney laftiisu uu ku yiri fadlan kubadda dhiga waan dhimanay. waxay ahayd muujinta awood buuxda. ku dhawaad sanad kadib, Iniesta weli waxa uu sii waday rikoor aan laga adkaan 38 kulan tartamada oo dhan. ugu dambayna 55 kulan oo xiriira oo horyaalka ah muddo 3 sano ayuu saftay, taasoo ahayd muddadii ugu dheerayd taariikhda. haddii ay jirtayna cid weli shaki ka qabtay tayada Andres Iniesta, waxa uu ahaa ciyaaryahan aan la joojin karin markii ay timid Yuuradii 2012. Iniesta waxa uu furay tartanka isagoo noqday xidigii ciyaarta kulankii furitaanka ee Talyaaniga, waxaana halkaasi ka bilowmay bandhig aan caadi ahayn. Spain mar dambe gool lagama dhalin intii ka hartay tartanka, mana ahayn in difaacoodu uu ahaa mid mucjiso ah, balse sababtu waxay ahayd in inta badan 5 kulan ee harayba kooxaha kale aysan xitaa helin kubadda,
sababtoo Iniesta ayaa xakameynayay kulankii Irelandna waxa uu ku lug lahaa 2 ka mid ah 4 gool markii ay la ciyaareen Croatia waxa uu bixiyay baaskii goolka guusha ee daqiiqadaha dambe markii ay la kulmeen Faransiiskana isaga ayaa bilaabay weerarkii keenay goolkoodii ugu horeeyay markii ay xulka Boortaqiiska la ciyaareen ee rigorooyinka la gaarayna isaga ayaa dhaliyay TC finalkiina mar kale ayuu qaatay abaalmarinta ninka ciyaarta ugu fiican markii saddexaad iyadoo Italy ay ku burburiyeen 4 gool iyo waxba markii la gaaray waqtigii la bixin lahaa abaalmarintana Andres Iniesta ma ahayn xidiga ugu fiican tartanka ama kulankaasi ee sidoo kale waxa uu sanadkaasi noqday xidiga ugu wanaagsan guud ahaan qaaradda Yurub waxaana uu ka dulqaaday Messi iyo Ronaldo laga bilaabo waqtigaasna Iniesta waxa uu sii waday urursiga abaalmarinada isagoo bishii Decemberna ka soo muuqday podiumka Ballon d'Orka dhamaadkii xil ciyaareedka waxa uu ku guuleystay kubad qaabeeyaha ugu wanaagsan dunida isaga oo sameeyay 22 gool caawin 2014 markii la gaarayna waxa loo magacaabay xidigii qadka dhexe ugu wanaagsanaa la liigaha markii afraad oo xiriir ah kadib dhammaan arrimahaasi Suarez ayaa ku soo biiray kooxda waxaana la sameeyay saddexleedii weerarka ahayd ee caanka ahayd Emerson taasoo ku hogaamisay Barcelona xil ciyaareed kale oo dahabiya markii ay hal kulan u jireen inay qaadaan saddexleedii taariikhiga ahayd Xavi ayaa ku dhawaaqay inuu ugu dambeyn ka tagi doono kooxda dhamaadka xil ciyaareedka tanina ma ahayn wax lala yaabo oo waxa uu jiray da'da 35 sano Iniesta laftiisu waxa uu jiray 31 sano balse maalintaas ayuu go'aansaday inuu hubiyo in saddexleedu ay noqoto hadiyadda ugu wanaagsan ee uu ku sagoontinayo saaxiibkiisa Xavi markii ciyaartu ay socotay 4 daqiiqo finalkii Champions League-na waxa uu ka caawiyay goolka furitaanka Ivan Rakitic daqiiqadii 74aadna markii uu garoonka ka baxay waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay taariikhda ee loo magacaabo ciyaaryahanka ugu wanaagsan kulanka saddexda final ee ugu waaweyn dunida waa Euro, World Cup iyo Champions League Xavi ayaana markaa garoonka soo galay waxayna ahaayeen ilbiriqsiyadii ugu dambeysay ee labadoodu ay garoonka ku wada ciyaaraan muddo 3 sano kadib Iniesta wali waxa uu sii waday inuu xasiliyo kooxda runtii wali waxa uu ku sii jiray listiga Ballon d'Orka 1 sano oo kale wuxuuna noqday ciyaaryahankii saddexaad ee Barcelona ah oo taariikhda taageerayaasha Real Madrid ay u istaagaan sacabkana u garaacaan waxa isaga uga horeeyay Maradona iyo Ronaldinho markaasi wixii ka dambeeyayna sanad walba dhaawacyadiisu si tartiib ay u sii siyaadayeen markii la gaaray xil ciyaareedkii 2017 waxa uu la kulmay 7 dhaawac hal xil ciyaareed gudihiis Iniesta waxa uu go'aansaday inuu gabagabeeyo waahiisa Camp Nou inkastoo sagoontintiisu ay ahayd mid sharaf iyo xasuus leh haddana ma jirin qof siin kara sagootin la mid ah tii uu siiyay Xavi saaxiibkiisii hore ee Xavina waxa uu soo qoray warqad isaga oo ku qoray kelmado ay ka mid ahaayeen xasuusa markii ay yiraahdeen idinku ma wada ciyaari kartaan Andres waxaan dhab ahaantii cadaynay inay si buuxda u qaldanaayeen